Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada casharka cusub. Dhageysta waa isku aragtay nabar kaaga soo baxa futada dhinaceeda, kaasoo wata dheecaan u urayo sida saxarada oo kale. Maalmo kadibna nabarkii ma qalalaa, xanuunkana ma joojiyaa oo ma iska dhigaa sidii wax reestay oo kale. Laakiin muddo kadib ma soo laabtaa, dheecaankiina ma soo celiyaa. Nabarka meelo kale oo ka agdhow af ma ku yeeshaa. Antibiotics walbo qaadatidna nabarkii ma raysan la'yahay. Dhowr jeerna xanuunkan baabasir ahaan ma lagaaga daaweeyey, xalna weli ma u laadahay. Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigoo kugu socdaa ee ka faa'iideyso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Xanuunkan aan soo tilmaamay waxaa loo yaqaanaa isu furanka dabada ama fiskolada dabada, afka qalaadna lagu dhaho anal fistula. Isu furan ama fiskolo waa marin aan dabiici ahayn oo si qalad ah u samaysmo, iskuna xiriiriyo laba meel oo aan isku furnayn. Wuxuuna ku dhacaa xubno dhowr ah oo jirka gudihiisa ama dibaddiisa ah. Ciladan waxay timaadaa markii marin isku xira meesha saxarada soo marto iyo maqaarka kore uu samaysmo. Badanaa waa marin aad u yar oo saxaro weyn ma soo gasho, laakiin dheecaanka saxarada ayaa soo geli karo. Markuu ku aruuro af ayuu yeeshaa, kadibna wuu dilaacaa, haddana muddo kadib way soo kuusataa, dheecaan ayaa ku aruura, haddana way dilaacdaa. Marinkaas qaldan wuxuu badanaa af ku samaystaa meel futada agteeda u dhow, laakiin mararka qaar waxaa lagu arki karaa meelo ka fog sida cajarka ama qooraha. Dadka aan aqoon xanuunkan waxay u aaminsan yihiin inay tahay kasoo bax ama nabar malax ku aruurtay oo aan bogsanaynin oo soo laalaabanayo. Maxaa keena xanuunkan? Wuxuu ku bilowdaa infekshan ku dhaco qanjirada yaryar ee futada u dhow, kadib infekshankaas ayaa samaysto marin aan daboolmin oo si joogto ah dheecaan u soo saaro. Waxaa kaloo lagu arkaa dadka qaba xanuunada asiiba xiidmaha waaweyn iyo malawadka. Sidoo kale dadka baabasiirka la nool oo calooshoodu mar walba fadhido iyagana waa lagu arkaa. Sidee lagu ogaadaa fiskolada? Fiskolada waxaa lagu gartaa aragti iyo astaamaha uu qofka ka cabanayo. Marmarka qaar waa laga yaabaa in lagu sameeyo baaritaan scan ama ultrasound. Baaritaanadaas waxaa ugu muhiimsan nuuca loo yaqaano fistulogram, kaasoo ah in dheeh ama dareere midab leh lagu shubo isu furanka si loo ogaado inta uu dhirir la eg yahay iyo inuu meelo kale u sii farcamayo. Sidee loo daaweeyaa? Antibiotic kaliya wax kama taro, waana fikrad qaldan in nabarkan qallajiye lagu daaweeyo, laakiin waa in la dilaaciyaa oo wasakhda laga saaraa. Haddii marin ku xiriirsan futada la arkane, waa in la daboolaa si uusan mar kale dheecaan u soo gashan. Sidaa darteed xanuunkan waxaa lagu xaliyaa qaliin. Kani ma ahan qaliin dhib badan, laakiin waa inuu kuu sameeyaa qof aqoon u leh qaliimada fiskulada, maadaama halis ay tahay in dhaawac kaa gaaro laastikada ama muruqa ku wareegsan futada. Dad badan ayaa ka sheegto in xanuunkan laga qalay, laakiin kusoo laalaabtay. Sababtuna waa iyadoo baaritaanka kore aan kusoo xusay ee fistulogram qofka la marsiin, kaasoo ku hagayo dhakhtarka inta isu furan oo u baahan in la xiro. Markii qaliinka la sameeyo waa inaad xanuun baabi'iye qaadataa iyo daawo caloosha jilciso inta nabarku uu ka raysanayo. Waana in qofku uu ku fadhiistaa baaf lagu diyaariyey biyo diiran oo la cusbeeyey si dhaawaca qaliinka nadiif u noqdo, jeermisna uusan ugu dhalan. Xaaladaha qaar ee fiskulada waxaan ku xalinaa farsamo laser taasoo qofku isbitaalka u jiifanaynin. Halkaas ayaan kaga baxayaa casharkan. Wixii su'aalo ah fadlan noogu reeb qaybta commentiska ee muuqaalkan. Sidoo kale fadlan faafi oo share garee casharkan maadaama xanuunkan dadka badankiis ay qarsadaan. Waana mahadsantihiin.